alihi wa saxbihi wasalam shiicada iyo suufiyada waxaa ka dhaxaysa qaraabo naas bay wada shaqeen in yakunha aw yakunha fa inahu akhuuha hadathu ummuhu bilibaaniha suufiyadii waaweynayd ee akaabirta ahayd in badanoo ka midii waxay ahaayeen shiicay ahaayeen saas aawadeed a'immada suufiyada shiicadu waa qadistaa waayo laba kaadh bay ku shaqaynayeen sunnana waa muujisanayeen shiicadana waa la jireen xallaaj baa ka mid ahaa tashayuc baa ku jiray ibnu carabi baa ka mid ahaa tashayuc baa ku jiray qaar fara badan baa la soo noqliyaa ta kale waa isku asaaniid a'immada ay sheegayaan badanka way iska waafaqaan sanadkoodu wuxuu ku arooraa cali bn abi aalib been bay cali u sheeganayaan cali beri buu ka ahay suufiyaduna saas si leeg waxay leeyihiin sanadkeegu halkaasuu galaa marka laga reebo qolada la yidhaahdo naqshabandiya iyagu waxay sheegteen abubakar inay galaan a'immada ay shiicadu sheeganayaan 6 ama 7 ama 8 ama 11 bay iska waafaqsan yihiin calaa xasab bay ku kala duwan yihiin yacni iyaga ikhtiyaarkooda saas aawadeed annabhaani suufigii weynaa ee nabhaani la odhan jiray ee shawaahid ulxaq kitaabka la yidhaahdo qoray ee uu istiqaasada ugu doodayo iyo kutubaha kale sida karaamaat alawliyaa markuu karaamaadka ka warramayey 11 imaamay sheeganayaan 12 imaamay sheeganayaan shiicada raafidada ah ee isnay cashariyada ah 11 ka miduu u tarjamaynayaan oo mid walba karaamaad u sheegaya cilmu sirta ay sheegayaan bay ka siman yihiin taqiyaday ka siman yihiin a'immaday sheeganayaan bay ka siman yihiin baatinkiiyo daahirkay ka siman yihiin siday taqiyo ugu mucaamilayaan shiicadu wa khaasatan raafidadu bay suufiyaduna ugu mucaamilaysa a'immadoodii waxaa laga soo naqliyaa inay leeyihiin waa in la qariyaa waxa la qabo xallaaj alxuseyn ibnu mansuur markii la dilay oo zandaqada loo dilay suufiyada akaabirta qaar waaweyn baa waxay yidhahdeen oo ka mid oo akaabirta ka mid ah yacni isagaa naftiisa ku tacdiyey inuu junayd ahaa baan filaya qari baanu lahayn qari in badan bannaankuu soo dhigay waa taa jazaagiisu noqday in la dilo waxaa jira ashyaa yacni marka tawxiidkiiyo waxyaalaha la midka aan ka hadlaayo qol keligay ah mooye meel kale kuma sheego kabiirkaasaa odhanaya kabiirtii suufiyadu ka mid ah ashcaar baa jirta xataa ay ku cabirayaan oo ay leeyihiin caqiidada in la qarinaayo iyagoo tilmaamaya waatay qaarkood yidhaahdeen yaa ruba jawhari cilmin low abuuxu bihi laqiila lii anta miman yacbudu alwathana walastaxalla rijaalun saalixuuna dami waxaa kaloo loo soo naqliyaa walastaxalla rijaalun muslimuuna dami yarawna aqbaxa maa ya'tuunahu xasana marka wuxuu tilmaamayaa in waxa weeye hadduu sheegi lahaa cilmiyada qaarkood in la gaalaysiin lahaayoo la odhan lahaa awsaantaad caabuddaa dhiiggiisana la bannaysan lahaa baabka taqiyaday ka siman yihiin oo waxay leeyihin muctaqadka waa in la qariyaa saas aawadeed nimanka shiicada raafidada ah la yidhaahdaa waxay yidhaahdaan maa cubida allaahu bishayin axabba min alkhab'i wax ilaahay ka jecel yahay in taqiyo lagu caabudo wuxuu ka jecel yahay ma jirto qarinta wax la qarinaayo in lagu caabudo rabbi ugu jacayl badan yahay
marka muctaqadkooda waa qariyaan. suufiyadana akaabirtoodii qaar ka mida laga sheegay inay yidhaahdeen waa in la qariyaa. wax badan bay yacni ka siman yihiin, wax badan baa ka dhexeeya. qubuuriyada ka dhaxaysa, xabaalaha la dhisayo, xabaalaha la dul ictikaafayo, istiqaasada amwaadda, xabaalaha loo xajinayo. waa laga yaaba bacdu suufiya nowcan maa in ashyaada wax ka yara khafiifiyaan, waa yidhahdaan annagu ma wada qabno. laakiin qaar kale oo suufiye ah oo tasawufka ka dhexeeyaa qaba. abwaabtana shiicadu iyaga u asala, baabka qubuuriyada ku saabsan iyo xabaalaha in la dul ictikaafo, in iyaga laga barakaysto, in xabaalaha lagu dawaafo, in loo nadro, in waxa lagu dul qalo, in lagu dul cibaadaysto, in loo xajiyo. shiicadii hore sheekh ka mid a oo maxamed ibnu nucmaan almufiid, wakhti horuu noolaa 413 hijiriyada ayuu dhintay. raafidadii waaweynayd buu ka mid ahaa. waagaasu wuxuu qorayaa xabaalaha sidii loogu xajin lahaa. suufiyada halkii bay ka ambaqaadeen, halkii bay ka wadaan. markaa saas aawadeed waxyaalo badan oo ka dhaxeeya ayaa jira. waxaase ay aada ugu kala duwan yihiin suufiyada haaliban aan naqaano masalada ku saabsan dhaleecaynta saxaabada, oo ma qabaan kollay suufiyada soomaaliya in saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam la dhaleeceeyo oo wax laga sheego oo la caayo ama la gaalaysiiyo sida caanka ka ah ma qabaan. walxaqu yuqaal. qur'aankaa muxarafoo la bedelayna ma qabaan. labadaa masalo midna ma qabaan. malihi masaa-ishoo dhan waa ka siman yihiin labadaa mooyaane, laakiin masaa-isha kale in badan oo ka mida way iska shabbahaan oo wax weyn ayaa ka dhaxeeya. waxaana laga yaabaa dad fara badani inay u qabaan suufiyadu, dad fara badan oo suufiyada ka midi inay u qabaan baa laga yaabaa shiicadu niman aalubeytkun jecel inay yihiin, laakiin muctaqadaadkooda inaan qaarkood aqoon ayaa laga yaabaa. marka waxa weye calaa kulli xaal waxna waa ku kala duwan yihiin, waxna waa ka dhexeeyaan. baabka qubuuriyada ku saabsanna waxyaalahay iska shabbahaan ayay markaa ka mid tahy. wallahu aclam.